بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزير كدار دولة جولات كونفور قلب الصوماليا وسنكهوري وزير كوزارة ورفافنتي وعيقلين تبلشدة مدنيالك برلمان كدولة جولات كونفور قلب الصوماليا معمولك قبلك دقمدة antartamayaalkii barnaamijkii tartan aqooneedka aqoon iyo akhlaaqi warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dhammaan bulshada ku qayb galay xafladan abaalmarinta ah waliba siin ka salaamay salaanta islaamka taasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdu salaam dabcan aan okadowahaw afka guddiga tartan aqooneedka aqoon iyo akhlaaqi warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wali si gaar ah meeloonka mahadnagay ku qaybgalayaalkii barnaamijka tartan aqooneedka aqoon iyo akhlaaqi warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sida degmooyinkii xaafadoodii shal duwanaa ee magaalada Baydhabo tartanka sharafta leh suurada leh oo laantii oon qabsamo lahayna marka hore waliba lahaa إذا ما سنتين سدا شرفت له سنين لشقيتين شقن هو بالقبضة عقبضوين جيلته والكستو عقبض شقدا هرسرناينا جيك وليبا ونروجنا معلنتي ونسك أبال مريل هايني معلنتي عقبضوين كاسلا ونها كجذبني لانكي جولي سدفذي لانكي لكو جولي سدفذي بدمانتيو لها كجذبي جب ذي الروجنا intii aan hambaliyada oo degmooyinka iyo xaafadaha aan gud galna wali faday inaan mahadnaga oo aan mahadsanta wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane wasiir Jidow oo sanadkan sponsor gareey ama maalgeli barnaamijkan bilaaw iyo dhamaadna si gaar ah hindho aan ka hay oo hatan aan roogno xafladan suurada leh sharafta leh shoobka leh una toqobada haynona usa mas'uuliyadii lay iyada ma hadsanta mudane wasiir ballanti ada qaadi iyo waliba sidii ada aan qaadi han ku batiya kalena iyada aan ma hadsanta wali faday in aan hambaliyo ana era degmada champions ee sanadkan degmada Baraaba ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ogdin Baraaba dabcan magaala oo taariikhi walbarashadii tacliimtii ee lan wada gorodow sanadyaal badan iyo barnaamijkan ku qayb qaadatay laakiin mansuur galiniya koobka qaada sanadkan iyo ansuur gali iniya koobkii tartan aqooneedka warbaahinta koonfur galbeed iyo ka guuleysatay way balana Baraabe hambaliyo way saasaata waan hambali arafaday degmada Tiyaglow ee gobolka Bakool oo aan lahaa isina kaalanta lamado isin galansiin ka mahadnaga isin oo degmadii adoonka jarto yaani galanta dawladana hata aan ka jarna dadaal isin soo badan darteen isin ka guuleysateen kaalanta lamaadnaha galantaas way muujiyaasa in adeeg iyo waliba dhinaga tacliimta walwiin mayl raisin ku qabateen degmada Tiyaglow iyo dadkii matalaayeen way balaha eedaas in ka kambaleen xaafada Daarusalaam ee magaalada Baydhabo ya sanadkan AEB iyo wada tartamayeen lamadaas xaafadood ama xaafadaas oo lamadaas koox matalaasi ya sanadkan kala mooga gali koow iyo lama Baydhabo iyo matalaay yoon way balana hambaliyo eedaan ma hasantin shaqo feelan qabatan laantin ma qabsama lahayna barnaamijkan sida suurada leh hadii ana gudu gala way dhinaca kala faday tartankan sanadkan way haayay tartan ee xiiso badan leh diyaar gadow badan la geli way markala arafaday guddigii oo shal doonay ee barnaamijkan noo kala qayb qaaday dadkii tabiyay farsamo yaqaanadii kameramaanadii injineerada shal doonay dhamaantii oo wasaaradda ku wada tirsanaan hambaliyo eedan ma hasantiin shaqo faylan qabateen qofka markii shaqadii isu qabadii miro iyo araga waybo eedan ka farxay geek oo dhan wada farxsana waybo guulo aabyal badan lata guulun geek la deeray dhamaantan wada deerni ana afkin lay ka hadalaya laha jaamacadda BIU Baydhabo International University yana dhinaga su'aal diyaarinta iyo hologaasanayn qaabilsanayti yana jaamacadda
والفيلن أو طبعا هنتقه أو مستقبل وانين رابتي بلشدنا way barajay inay yoona si idan ku faa'iideysan doonaan su'aalogaas bilaaw ilaa dhammaantiyo hayna iyagoo daawacana walahay iyagoo software walahay way bana rajay inay xilli dambana reelan ku faa'iideysan doona waqtiyaal kale oo xilligan haynana reelan isticmaalo doona ardaydana aan ku faa'iideeyo doona hadii aan baahanyin inay una siina insha Allah tartan hoob leer wal wada tartame ogdin may leeray caqabadi iyo challenges badan leeyahay tartanka su'aalo qaabka la diyaariyay qaabka may leeray lanku jawaabay khadadka telefoonka dhiniyaal badan may leeray way la ku yaabay inay culays ku kooyaan haddii wal wada tartame leer haddii la mashiid iska dhaw kole jabe haddii wal tartame leerona gar way leeray lama qof ma ku wada koodiyaas dad badan oo saaxiibahaynay asxaab haynay tartanka madiina la bilaawday si sharaf leh oo shoob ka wada bilaawni yaa way ku yaabay in markii tartamadii ku hireen calool xumo cuqdad iyo waliba yoon argayaan in la xagli taasina wala shaqo kale aan hayna laakiin guddigii madax banaanay iyo guddigii iyo su'aal diyaarintii dhan la isla gorday way balaha marka tartan hoob la gala dharafa kooye wal iska dhawo kooye handabada kuwaas wal kasti kooyeen onoon ogna arintaas ya taxamul iyo bilba dulqaad aan soo bini saas yaan inta ka deernin marka hatana geek oo wada roogay ba anta faday inaan ku edsado oo aan maadaama dhammaan tartamayaalkii degmooyinkii iyo xaafadooyinkii dhammaan la wada roogaan inay la nasra lahaada ono ka guddihaan anoo guddiga afjo ka hadalow waluna siin qabna marle walaagi idaafe walaagi do walaagi kale oo may leeray oo hasiin ku bubuubi dhamaantii way ba aan argaane may leeray wal dharafki iyoonay walaasayshani hatana may leeray way rajay in insha Allah walaagasay unu quraan lahaana saamaxnan isiigna walaagi isin aragdan in isi culays la siin ka saaray awaamirta adkayti waqtiga eedka lan ilaaliyay su'aalogii oo may leeray nooc hayan pressure kiisan saaranay uno dareeman isin waysin ku codsadaan in isin nooraal haatan sanadkun sanadeen insha Allah bash barwaaqo ilaahay ni deersi diyaar garow faylan unoon way barajeen in uu barnaamijkan si bileerno si ku dubun iyo ku casraysan la suubi wal kasta oo caqabada oo sanadkan hana mareen way rajeen in uu ku barana walaal uu ku baranoon hadii ilaahay idama bedel iyo isin arga doontaan insha Allah biidin ilaahi kareem inka dambeyntii way fadaynaan aan mahadnaga wasiirka warfaafinta oo dabcan hoolongning agmadi bilaaw ila dhamaad unoon may leeray boqolkiiba boqol aan ku bani meero korno laakiin dadaal soo beenay xafladda uu geek roogna wasiirka caafimaadkana saasaata uu soo mahadnagaana inka dambeyntii wali laha hool qabadow may leeray hal qof leh maqabadow aan afkaan ka doowahay waa afkii oo guddigii qobadii may leeray tartan aqooneedka iyo waliba guddigii ku shaqeey xafladan suurada leh anoo ka hadalow waysan lana eedaan ma haysantin ha ku qayb galowkin ha ku may leeray qayb ku haanshidin barnaamijkan sideedkan faylan runtii tartan la qobaday hoob leera hoolaha la qobado hoolaan adag intii aan maraya marka TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed oo eedanka dadaalan sidii bili barkaysanay Ramadaan iyo antartam siifadin degmooyinka iyo xaafadaha magaalada Baydhabo intaas ku bacda mayba ku hadalahay afka jaamacadda BIU unina mayba qayb ku haynaya diyaarintii su'aalaha sida oo wariyaalkan dhafarayaan ya unina la dhafaraani garabsho surnayni marka mayba ka faraxsanay geeka barnaamijka jaamacadda diyaaradii intii gabagabadiis la hadeeri oo TV-ga raadiyahana qayb ku hayaan marka si guud ahaan ay farxadaana malaha koobo kor mayba faday intii aan antan ka hambaliyay kooxihii guulaysadeen mas degmooyinkii iyo xaafadihii guulaysadeen mayba siin la hambalyo geek amal hadal iyo ma baahan bas kaliya intii las abaal mari mayba eedanka faraxsanaa wasaaradda warfaafinta oo geeka taabagelinta barnaamijkan qaadatay mayba lahayeen iyadan ma hasanta marka hadalkay ma dheerow hada macquul wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وإذا ثم نقال إلهي سبحانه وتعالى أو أن يكون لي مكان ونقدر نقول ونوع ما تقول أن كلا دويبا هم أن نقول قد لي أبدا حفلة وشرفت بدل من جماعة بدل تنين صوبي ويبوا أن أقوى تور بدل حكر دياس
isdhexgalka degmooyinka dhasoo in isbaradaan waa eed muhiim aw inkastoo caqabado badan isku jiraan insha allah kuba ku gudub doono warka masinka dheeraw shaqo oo degdega ay jeeda kaliya dadka active eedka doonka saawno ka jaro la qof gaawanaha muhiimadda ay baa taantiana meelan antaan teemka kama hanaga tan kale waa in balaqaad yar suubi horta dhamaadii degma haskari hadii ilaahay arag بس كندورة ما إن شاء الله ولا يبغى على الدنيا تنكر إن شاء الله دعوة برا وهذا هرو تنتظر إنه هاي سد هدي إلهي أرى وقت روائي كنا هكذا ترجعين هم إلهي أرى دعوة سروق روائي بيبقى كذا تيم كم أمانة برا وين أنا هكذا تيجي له كم أكتر كذا هدي إلهي كذا هذه السلامة إن شاء الله مدام بارتقال تيم بارتقال حبان جدول الإسلام كأسنا منا سبب تسرادة كذي وارها وكلا هذا أرجع لما سنتين إلهي يا مهله الله ننصر تجلي أنتي ترتم قرح بدن جهد الله جلي أو جيك حفلة دي سنتين روم امتحان ينقبسهم سمع قولنا ينقبسهم إلهي يا مهدي الله مركلمات ما مهد نجاي إن وزيرك وزارة عافيمات كوزير جيدو أو سندكم تابعلي أما سبونسر جري أنتي ترتم كون قبسم يعني هبكون قبسم ما يكاله سجارة إنك ما هنجاي وزير كورفافين وزير عبد الفتاح أو أسون مركين كوريتي إن ترتم هوري هم يبقالني لكن ما أرجع جرنا أنتي حفلة لين قبل ترتمياش أول ديرجلي مرك وزير كا أو سند كين كوري وزارة قبضي إن ترتمياش حفلة دون قبضي ديرجلي يسون سجارة إنك ما هنجاي إن ما يفضي هندور أريموت أنتي أتصد أو ما يقعد سداي إن وزارة ورفافنت إن ترتم مدلة قبضاو يعني أقبض بدنا كلية ترتمك أقبضوا ليا وما يكون متأها سؤالو قار ما يويل ضايان إن وجي بدنا ويل ضايان مركا ما يحبونا معلمين أو ترتم كهدي عرياس همين كاستمالين شيء انت لشان يقعد سدس أو سفضت وقت إنك بنا أو سفضت لينك شلبي دتك تنلمت ما عد سداي وزارة وحبر الشدة قعد سداء إني سميت أو يعني نظامك وحبر الشدة ديجانا ده كوفر قربيتها ككرديد ولا لينك ساو moral education ويبو عميل كده ساي moral كأو أما إن مسك هذا IQ أو دالن يرتو البرد هاي تقول لك كده ساي وحيابا البراء كلامه يكون متها دولة وناج إيو كالنتيو كلين يعني دولة مركا هدي لها كردي نظام كسي والبدن مي هجاج لهاي أما فوضى لهاي سدي بلشد أن لشغل لهاي تي دولة إن ما يكالس أسوأ كالفضي وزارة وحبر الشدة إي دولة أردن قد سدي أنتي معمول كون لإنسامي ما دام أنو بح وحبر الشأن إن هاللايبرري أوين لهاينا ديجانك إن اللي دس هاللايبرري أوين أو يعني دتك فضان أنتي والآخري سدان والكو آخري سد قرآن وقدام بينتي ما يهجدي لهاي إن لا أتكي نظامك وحبر الشدة ديجانك إن امتحان أمي لقاده دولي لقاده امتحان كاس دولي لقاده ده معمل قولات كاستمان ترتميه أنتي أو يعني كارمون كوريت وسجله وحيابا لك جلاون ما يبقى متها إني ما يلرايس إن شاء الله قشي ولا غسيل ويدي ساسين ويبقى إذن كضعيف فيه أغنت إيو يعني معمل وحبرشد إسكولات إذن ضعيف فسكباس تيجي أرديد تيدن هنيم بحثون إذا ما أنك ذا سهنتو ضعيفة مرك ما يلفظيه إن إلا أتكي إن امتحاناتك ساس أكل نظام وحبرشد لا أتكي إسكولات وحبض والبضم وقالدن لسها إن ما ينين كفوض هذا مرك ترتنك أول قبضاو يعني فدرال تي في قرنك قبضاو أنتي ونك جوليسن وحياو كلو بدن أنتي ديجان ككرديان دتك أقوم تسيلي يفوض ذاس مرك أنت أسعد سده إن وربضن يعني مليهني مذهب فديد دتك ما يرى أنها سدحول هادي ميل روغان مسدح قف هادي ميل روغان سدوال هاد والله ويلا هاي سده ما يكون متها دت
oo yacni culumo ama dad kuwa aqoon badan ma dimay la fadhiyaan afkaar lahay sida eraayan safolt in ka dhiin ama qalad in galan marka saqaladkaas in isku ilaaliyo warkeeha koobe mahadnagay TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed shaqaalaha guud wasiirkan markale mahadnagay wasiir dadaalka si wada kalena wasiirada kale may ku codsadaan sida wasiir jiido sameeyo oo kala in dhiirigelin markasta la daba teegnada ama taabageliyan tartamayaasha nooc oo kale may kale inta la kordhiyo ku codsada lahay tartan oo diini ama quraanka la ka tartama inta kordhiyo wasaaradda yani ciidan codsada lahay ugu dambeyn man hambaliyay walaaloogaana degmada Baraaw oo ka guuleysadeen tartanka unuuna kaalmada koyni unu oo yani duruufo adag ka tartamaani unu loogi intii degmadan ku tartamaani meel kale ka tartamaani Baraaw meero kore jaanis ka sanadku noo ka badeedan may haay intii sin degmadin ka tartamaasan dad badan in siin garab surinaayeen unuuna golko shiriidan ka tartamaani saasan oo guuleysteen sanadka dambe unu adagna anagdan insha Allah ilaahay mahadle oo hanin ka dhamay tartankii soonkii sodonki beeruna tartamaani kadib ay mahadnagay lamada wasaaradood wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo may kala salaamay wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed oo suurtageliyeen intii tartankan soon qurux badan inta ka dhii soon badan ha tartamaani ma aragna tartan oo soon qurux badan xaflad oo soon qurux badan dhiidi ma aragna saas daraaddeed may mahadnagay lamada wasaaradood mahadnagay may lahaa barwal beeda mahadsantiin may kala mahadnagay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo juhdi hagileen aan goray agaasimo Umar Mustafa dareema kortaan duruufta la ka tartamo rooba kooye dhibka marabirsho may baa tartan dhamaaday may ka dhamaaday bareeja madaasa su'aal kale nasla baa runtii dhabar adeeg iyo may baa muujeena cadaalad yaa muujeen agaasimo Umar Mustafa aan goray mahadnagay may baa kale aan mahadnagay xaafadatiiday oo Daarusalaam oo sanadkii in horay madin horeyti iyo wacdar ku sameeyay tartanka oo xaafadii in horeyti nagati iyo BDB yani kaalin koowaad iyo kaalin lama isla galaan maadaasna may bas ku leeyahay tartamayaasha oo aan dhabar adeegan xaafada iskiirnaayta dhalinyartiyo oo juhdi iyo dadaal badan iyo biyan iskiirnaasho biyan iyo intaasna sugnaatay waan mahadnagay may ba kale aan mahadnagay wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed oo ka horeeyay wasiir jiido iyo onatay agaasimaashii abdiyaal dogay runtii geedka farxadda mala koobo kor mudoomay waa xaafiday AEB-di kaalankoodii kaalama isla galaan iyo wasaaradda aan ku tirsanahay wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo tartan soon qurux badan يا ترتن صون قرح بدن يا تابع جديدي وأنكم مهنجة ووزير كيو أجازماشين إذا أنكم مهنجة وإذا فرح سنة شعورتي ملا كوبكر هذا الكور ما يجيك عليه قاضي ما يبلها إذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبر الشدة ديك ماذا براو وحدا أرنتا ساجرتا إن كخيب كشيدان ربا مركا إن شاء الله هذا البدن ما هي لكن الحمد لله دينا waxbarashadan ka hadlaya anoo ku hadlayo magaca shabeellaha hoose oo dhan gaar ahaan degmada Baraawo degmada Baraawo waxbarashadeeda hadda ma sha Allah aad ay u soo koraysaa dugsiyad badan laga dhisay ma sha Allah shukran wasiir waa ku mahad celinayna wasiirka waxbarashada tartankii hadda jirayna macnaha anoo maqan ayaan la socday hadana su'aal oo aad ma sha Allah oo fiican waa la weydiinay ardada jaamacada soo diyaarsana iyadana macnaha maad Allah ka gaarsiyo xafladan qabanqaabinteeda iyo taabagelinteedina wasiir jiido ayaa macnaha ayaan maad celinayna asagana waxa kaliya aan rabay inaan ku darsado waxaan arkay hadda su'aalaha qaar la isku qabtay waxa la isku qabtay marka waxa wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa in oo barnaamijkii kedis inaan loo soo celiyo oo bil walba hal mar la qabto ardada
informal education keeda saasaa lagu soo celin karaa in oo bishiiba hal mar la qabto oo state-yada dhan macnaha districtska laga qabto barnaamijka kedis ah that's informal education waay gaar ahaan social studieska in laga diyaariyo ardadeeni dhinaca oo taariikhda ah hadda aniga taariikhdeena ma naqaano ardada baydhabo haddaa la weydiiyo baydhabo xataa taariikhdeeda ma taqaano afgooy wada saas oo kale baraawo saas oo kale tieglo saas oo kale markaan waxaan rabnay system oo arrintaasiti lagu soo celiyo in oo la keeno gaar ahaan barnaamij la dhahayo environmental education qofka environmentkii oo ku nool yahay in la baro marka arrintaasiti ayaan macnaha codsan lahayn in oo kadibna macnaha markii oo la gaaro bisha ramadaanka su-aalaha mobliska qabanaya ardayda waa diyaarsiin su-aalahan horey u soo mareen marka insha allah ardayda arrintaasitana waa codsanaynaa in lagu daro tan kaleetana waxaa mar labaad macnaha u hambaliyeynaynaa ardadii oo ku guuleysatay degmada baraawe iyo degmada tieglo iyo daarsalaam kulligooda waan u hambaliyeynaynaa ardadeyna dhan waxaan jecelnahay inay macnaha ay guuleystaan ma aha qasab inaad oo abaalmarin qaadatid aqoontaasiti su-aashaasiti aad fahmaysid ood ka jawaabaysid taasaa wax muhiim ah mar kaleete iyo mar saddexaad wasiir jiido aada u mahadsantay dhiirigelintaadii marka wasiirada kalena waa ka codsanaynaa dhiirigelintaas inay bilaawaan marka meeshaan kusoo gabagabaynayaa wasiiro waxbarasho wanaagsan isma naqaano aniga anoo maqan ayaa macnaa inta badan wasiir jiido waa isnaqaanaa abshir waa isnaqaanaa wasiir maxamed waa isnaqaanaa marka intayni kale barasho wanaagsan wali si goone aan xusufadayha wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed mudane wasiir jiidow iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waylaa hambalyo guuli isin mayle raay deertan siinka mahadnagaan dabcan lan kasta oo mayle raay bini aadan wala waaye bini aadanka isku mid ma dareemo kortan lanka intan dhalinyaro ee dhiirigeli ki xaafadku kooyto munka xaafadood magaalada oo waliba AEB lintartamisiyay iyo degmooyinka koonfur galbeed tum isiyadka degma dabcan lanka abaalmarintii oo anabiyay soonkan mayle raay wasaaradda caafimaadka taabigeliyaas lanka eri dareemo kortan lan kasta wanaaga sayta qalbishay ma ka dhiyow wasiir jiidow hal mar inka sacbiya saaxiibkay oo ilaha dhalinyarada degmada baydhabo anoo asho ka hadalow wasiir jiidow si gooneen amaanana wasiirada oo dhan amaanana laakiin wasiirada kale nin ku duwanyin waxyaabaha nin ku duwanyaa sidii sheegay hoolkan dad tumay dhowr qof ee ka jaraan oo is shaqaalaysi qabiilanka shaqaalaysiina qabiilanka shaqaalaysiina damiin sheengalanka shaqaalaysiina reer meetalanka shaqaalaysiina dabcan dareemo gortan mayle raay wasiir oo qaab noocaas dhalinyarada ninka shaqaalaysiiyay intee ku weerato mun qof sheendhay walaalow qabiilo shal duban dad duruufaysan masaakiin jaamacad in isku bii korna dugsi sar in isku bii korna xaqor kale dabcan dareemo gortan wasiir oo ixtiraam iyo sharfakin hayn hoobunana dhalinyarada koonfur galbeed iyada ma hasanta tan kale wasaaradda caafimaadka wasaaradda oo warfaafinta iidan kama hadnagaana wasiir cabdifataax iyo guutaan agaasimaha oo mayle raay raadiha iyo TV Umar Mustafa iyo guutaan shaqaalaha baba ma hadnagaana sadadnimada leh dhiirigelinta leh wadaninimada leh iyo mayle raay hamiin imaalan dhalinyarada tartamayaan iyo ku dulqaadayaan su'aalo la diyaariyay si goonay jaamacadda su'aalaha nin diyaariyay naftirsha ma hadnagaan dhalinyarada tumunka xaafadood tartamayaan iyo naftirsha ma hadnagaana degmooyinka koonfur galbeed yoona ma hadnagaan maadaama isku jeelada faday degmada baydhabo in kaalinta koowad gal xitaa tankood oo gal way tan lamaad gal isku jeelada faday mayle raay nasiibkana saamix waay marka sanadka dambe way rajaynaa naftirkan dhalinyarada degmada baydhabo in kaalin fayl gal doonto rajaan arrimahan tartanka wasaarado koonfur galbeed iyo madaxda koonfur galbeed wali kala dirdaarmaane in la taabageli tartamada noocan wasiir jiidow iyo wasaaradda tusaalada dhangnagdan liiska galo fadaan hadee mayle raay sideedib ogtaada wali faylah wala la ka tartamada wanaagsana waxyaabaha oo deegaanka horumarkanka inni oo mayle raay walaas oo kale la ka tartamada muhiim ah wasaarado wali fadaan marka sida wasaaradda caafimaadka oo kale in kaalmooshan qaadana rajaan aan hooban geek wal halay shidaan hajo oo hayti mayle raay iliyabnay wala nasuubina ilaahay haji salaamu calaykum waraxmatullahi wali ciidanka faraxsanaa inaan ha ka qayb gala hiritaanka tartan oo wanaadka wasaaradda warfaafinta qobati wali ciidanka ma hadnagaane ama bogaadiyaane ha guddigii oo dhabar adeegay unoo og daruufo
wali kuduunaan dadka inta surumeen wali ha ka tirsanaya maamulka degmada baydhabo wali oga guddigan daruufo ka shaqeeyay oo ballamooyinkii meelaraa isu geeki wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed anfuliidi oo meelaraa wasiirka warfaafintana meelaraa si qurux badan qobadi marka mudane wasiiryaal lamaadin siin maxad nagaana waqtiga ma ka sii dheeraadow keliya un wali ka duugnaag dadka hoolkan fidhiyaan dhalinyarada koonfur galbeed un wasiir jiido wala in tirgalnay shahaado sharaf marka saasa siin ka duugna kisto yar ang mahad nagaana sida saaxiibka isaagan sheegay wasiiro koonfur galbeed may ka osaanay in yo keliya ka ekaadan in wasiir koonfur galbeed haadan qabiilka nin degaan degna sida wasiir jiido koonfur galbeed dhalinyarada farintaasa in jeediyaan wasiirada koonfur galbeed geek isigna mid ilaahay tan bariyaytoon una sig mid ila doona wasiirka keliya una ka daydaan haddii una hilqoban wasiir jiidow isigna saasaasin ka osaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maadaama waqti salaadeed nin liru waqtiga nahaaye hanuuma dheerayow wali mahadnagaane dhammaan wali lankii barnaamijkan ha abaabuli an ka horeeyey wasaaradda warfaafinta oo howli qobati iyo wasaaradda caafimaadka oo hogaamiyo wasiir jiidow oo yoona taabageliyan iidan kugumaa nagaana ka maamul ahaan maamulka degmada iidansi kugumaa nagaana micnihii may dhiirigelin taa dhammaan guud dhalinyarada walbarada ay koonfur galbeed mele raayus iidana angmaasintin arintasi lan dardargeli micnihii la soconi tv-gana kula soconi mele raayus tiimkan oo wasaaradda warfaafinta iyada yoona aan dadaalin 24 saac yahan jeedin arintan micnihii ilaa iyo 7 saac siyeesa lanki barnaamij daaddiyahay waana soogneta arinyar ma iyadana kuuma nagaana mele raayus hadalkan aanu bahdayo waa iyada maasantin dhammaantiina may kale inta ku hambaliyay lamadii degmo ka guulaysadii tartankan degmada Baraawo iyo degmada Tiyeeglo oo yan kaalanta lamaad galay dad inta yoona awaalkii gaaraga xildhibaanjo inta fadhi yoona hambaliyeen iyo degmada Baraawo sidoo kale wali hambaliyay tiimkii degmada Baydhabo ku socday ee xaafadda Daarusalaam yoona hambaliyo sameeyna wasaaradda warfaafintana adi wali maleeyay inay markii koreyti eta muubo laakiin micnihii intii aan maamulka ka jari ma aragna warsada la bandhigo micnihii dhiirigelin qata dhalinyarada waliyo shaqayseen ama meelay raayus waliyo guuleyseen oo si waaqace dadka hortay xaflad lanka dhiirigeliyo walaayo la kasiyo in markii koreyti eta maleey walaas dhoon magib weynaha micnihii horumarada iyo shaqooyinka oo waaqaca ay ku socdaan wasaaradda warfaafinta taasna wali kuuma nagaanaha ka maamul ahaan wasiir Abdifataax oo degmadana si gaar ah la shaqeeyay isuuna eedan ma santalena iyo tiimka Umar Mustafa dhamaantiina waa mahadsantiin salaamu calaykum والبرشيدة معلنك شمع ولا يحرق نفسه ويضيء غيره marka dadkan nuuriyaan laakiin yoo yarin eeda in yartiin geek meel raay geek amal wali fadaay maadaama meel lisrum loo ay tacliin loo hadlahay ma haddi ilaahay leeku bacda wali ma hadnagay lan kasta oo ficil iyo falka lahay marxaladan iyo sharaftan geek la roog an ka horeyto dawladda koonfur galbeed qayboshe oo sormuudinay madaxweynaha koonfur galbeed masuura u fadna haddii wasaarad kasta oo ku mid ee dawladda koonfur galbeed qiibiya kalata karaamadan iyo sharaftan tusaale ahaan haddii amni in jara fadna wasaarado dawladda wali in qaybsa maase dhowr nooc washal dari qaar bulshada adeega bulshada la aree qaarna nabadgelyadu qaarna siyaasadu qaarna may waaha may la raayis aadamiga gargaarsheeyo marka qaybo arrimaha bulshada iyadoo siyaasadda lahan ku shaqeyna amniga lahan ku shaqeyna yoona ma shaqeeyo koraan saas daraadiye koonfur galbeed oo dhan sharaftan qiibsidaas sagaar
wali liin mahadnagay lama wasaaradood oo eed kaalantanka qaadati wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta oo suurgelidi tan goobtii qaabkii iyo maraaxiishii iyo meel raay sidii liin tartama fadi sababayti tan dhaqaalihii iyo siilakweelo fadi sababayti sidaliinka mahadnagi ya anin an ka mahadnagee bani aadan hoob wal antartu ka amaane هو البعض من الانترنت ولا انتونا كآية وزير جيدا وصعب كبدن أولا صعب ياي جيلان كلام إيه ولا طريق مركز طالين يردا وزارة كلا ولين كجاب صداع نان ملا أما نفذين والتركة وزير جيدا وكورجرا مركز ما يشجع مركز ما يلها قس على ذلك ميلي هذا كشيد على القاعدة وزارة والبوب تورطار رفاي dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo waxbarashada isiin garab surume antaas laha anta kaleed degmooyinkii tartami iyo anti inka kaalmayti eedan mahadsantiin laha degmooyinkii koobka qaaday tartamay kaalin koowad kaalin lamaad galina wali laha hambalyo inilki daydu sanadkan sanadiyay wasaarado oo meel raay maalgeliyawna badan ani ku dhiidu ardayda tartamaasu iyo dugsiyada iyo degmooyinka tartamaawna eedan kororaan gudoomiyaasha degmooyinka koonfur galbeed ee 18 degmo inay tartamaan la fadee ma inay ardayda iyo tartamaan bulshada iyo tartanto ma wala tartanka lagu fadaa gudoomiyaalka inay tartamaan la fadee sidii aba meel faday dawlado inay tartamaan dawladda koonfur galbeed madaxweynaha dawladda koonfur galbeed inuu si dawladaha kala la fiiriyo oo xubnoonku ee dawladda federaalka la tartamo waaba la tartami waana ku guulaysidee argahayna markhaatidii bannaanka taal markuwaad marlamaad walba hambaleeye degmada baraawo walilaa hambaliyo iyo degmadii meel rayd xaafadii daarusalaam iyo degmada tiiglo ana ku jeeda yaan walilaa hambaliyo sanadkun kaalamaada koyteen sanad dambe insha Allah walba rajaynta kaalan koowaad koytan wali kala meelka ka jare lankii taariikhda xusuusada baraaw iyo tiiglo halmaan la isla xoreeyay waa operation Indian operation branch la xoreeyay heer baraaw sida gudoomiye degmada dhalinyarada sheegay way oo ka badiyeen walaageer maadaama deegaankii roogdeen dadkii ka dhex jarteen gudoomiye Simbaal Surmay iyo walaageer oo ka badiyeen إذا ما سنتين حنبلي سين لان مرنا والكلام أنت كدرس فديه جيك دموع المقهى وزير جيدو حقيقة مايك أمانة قبيل مايك أمانة والكلام مايك أمانة لكن أنا يردي وسؤال هنقول أنا أقول كم تاي بهذا وزارة عفمات كشيء جالس كم تاي حق أنا سين هذا لو وجو وزير جيدو يو أقاسمها وحقبت يو دلال يو مير هاي وحيابها يو قبضين دليلن قبضين وزير ولا ريفرنس كم تدري يراو الرورة ولا لين كدره نصعب كي يو أكيد تبني ميركوسي ويد أنا يرب بنان كين فديد أولي كده كين رجعنا أنا يرب ضمانتيو إن شاء الله دوران إن شاء الله ولي كردنا هم بليه صاحب كي وزير عبد الفتاح اليوسف وزير ورفافنته أو أنت وسجيك صورة جلي برامج كنت هدير لحداد دي أنتلشين ولا كنا وزير هم بليه هذين الجولة ستي ساسو كلا أجاسمه تي في عمر مصطفى يوبه هذه الدهياسي برامج ك ترتان قوانيت ك سين دال مود بدن موجودين ولا سين كويس إن هذا بدن دليل بدن أن دول قادتين دالكين إلى هي جرس ناس يمكسي يو برامج كده تجي عدي عريان أو ترتان قوانيت ك جامعة BIU يعني ساسو كلا إذا ما سنتين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان برنامج ومهم ويهواي خاصة دليل هوين يو قبضة يو سكوتر ويلشة رن أهانتي وزارة ورفافين هذا وما تعلنا يا يوعقلين تمادام أي سواء باب الشيء waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka wasiir jiido aad u mahadsan tahay kaalinta weyn aad ka qaadatay insha Allah annagana haddaan wasiiradii dowlad goboleed koonfur galbeed inaan diyaar u nahay mar walba inaan dhalinyarada aan horumarkooda ka shaqeyno sidaad ogtihiin alxamdulilah waxaan haysanaa
oo mahadna ugu jeedinaya madaxweyne cabdicasiis oo mar walba uu ku horeeyo ay tahay kelmadihiisa dhalinyarada taasina marqaati ay ka tahay maamulka maanta jira hadday tahay golaha wakiilada iyo wasiiradaba dhalinyaro ay u badan yihiin uu maantana haddana mar walba wasiirada marqaati ay ka yihiin been kama sheegayo uu nagala hadlo in qof walbo dhalinyaro ah ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato in la geliyo waqti qof walba meeshuu mudan yahay shaqada in la siiyo in niyadda laga jabinin sidaad ogtihiin annaga wasaaradda haweenka ahaan run ahaantii dhalinyarada u badan wasaaradaha kale saasa ay 100% aan arkaa laakiin hal talaan jeedin lahaa gabdhaha maadaama wasaaradda haweenka ku badan yihiin run ahaantii wasaaradaha kalena in laga qayb geliyo badankooda gabdhaha mar walba imaanayaan aqoon ilaa jaamacaday soo dhameeyeen waxaan dhahaa wasaaradaha kale xaq u leedihiin maahan halka wasaarada leedihiin run ahaantii wax badan ay isbedelay hadda wasiirada si gaar ah ugu mahadcelinaya anoo kala qaadaynin qaybta weyn ee gabdhaha ka wada siiyeen oo mar walbana oo la hormariyo gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha yihiin inkastoo wiilasha ay xaq leeyihiin midda kale haddaan usoo noqdo tartamayaashii ku guuleystay kii aan ku guuleysanaba sidiisaba imtixaan markii la galaayo waad ogtihiin qofna wuu baasaa qofna wuu ku dhacaa laakiin waa cashir oo berito wuxuu noqonayaa inuu kusii hamiyo inuu sii wato tartankiisa run ahaantii degmada baraawe shabeellaha hoose aad iyo aadaan idinkugu mahadcelinayaa degmada Tiyeglow oo booska labaad gashay oo gashay iyo degmada Baydhabo insha Allah way imaanaysaa wax kale degmooyinka kale iyagana sidoo kale in anaga ahaan ka xukuumadda dawladda Cabdicasiis waxaan insha Allah haddaan nool lahay aan sii joogno oo qof walba kursigan isku dhiib waayaan wasaaradka ahaan waxaan ballan qaadi doonaa in aan taageerin doono in aan ka qayb gelin doono dhammaan degmadaha degmo kasto meel kasta joogto inkastoo aan gaarsiin doono tuulo walba xataa inaan gaarno insha Allah maadaama uuna haysto xoogaa amni haddana waad ogtihiin amnigii waa muhiim amnigana waa ka wada shaqaynaynaa dhalinyaro hal dardaaranaa wadaa ha loo wada istaaga amniga waayo ma ahan in wiilasha maanta ama gabdhaha ciidanka ay qabanayaan annagana bulshada waana laga rabaa qof walba waajib ugu dhahay inay amniga dad laga shaqeeyo because haddaan amni haysan maanta heerkan inta ku fadhino oo aan xafladaha ku dhiganayno waa amni dartiisa amni haddaan haysan lahayn maanta saan ma aanan u fadhineen maanta waxaan heerkaan la gaarin maana gaareen marka amniga aan ku horumarino kulli shay aan qabanayno inaan amniga ka horumarino qof walbo dardaaran weyn waaye waad ogtihiin cadow baana hoos joogo cadow baa nagu dhegan cadowga anaga iska fujin karo run ahaantiina maanta dadka cadowga nagu ahna waa dhallinyaradeena oo la marhabaabiyey marka aan wax isu sheegno idinka naftirkiina bulshada waxaa idinka rabaa dhalinyarada qaar ahaan la shaqeeya amniga inaad ka shaqaysaan inaad la xiriirtaan meeshaa waxaad ku aragtaan walaalka ha ahaado ha kula dhasho ama adi ha ku qabo gabaray ninkaaga ha ahaado waxaa lagaa rabaa inaad soo sheegto run ahaantii haddaan nahay haweenweynaha koonfur galbeed run ahaantii gabdhaha aad ay u wada istaageen saad ogtihiin gabdho badan oo rood bulshada u shaqeeyaa jiro amnigana dhinaca qayb weyn ka qaatay laakiin waxbarashadeena waxay horumarkeena waxay kusii fiicnaan doontaa amniga inaan horta xoojino inta noo dhimana waan dhammaystiri doonaa insha Allah tacaala waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam barnaamijkan tartan aqooneedka sanad walbana la qabto inta aan joognay koonfur galbeed ay ka howlaneed wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda ugu horeeyo agaasima Cumar waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin shaqada quruxda badan aad qabateen ee aqoonta iyo akhlaaqda ku dheehan taasoo la qabto sanad walba bisha Ramadaan oo bil barakeysan ah haddana lana tartansiiyo dadka aqoonta ku tartamaya guud ahaan gobollada koonfur galbeed iyo degmooyinkaba halkaas waxaa ka muuqda sanad walba sanadkii ka dambeeyo ugu dambeeyay macnaha horumar ballaaran in la gaarayo sanadihii hore la bilaabayna waa ogeen ayagoo juhd badan ay gelinayaan
shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayagoo maalinkii sooman oo shaqooyinkooda oo u gaarkana haysta haddana in habeenkii si live ah inay soo fadhiistaan ay aqoontaas u tartansiyaan muwaadiniinta ardada koonfur galbeed ka wasaaradda waxbarashada ahaan aad iyo aad aan u dhiirigelinaynaa una bogaadinaynaa insha allah in aqoontaas iyo tartankaas la taabageliyo horena uu sii socdo horumarna laga gaaro iyadoo lagu saleynayo akhlaaqda iyo diinta iyo aqoonta guud ahaan manaahijta waddanka hadda dugsiyada laga dhigana lagu tartamayo ayagoo taabanayso dhinaca taariikhda juqraafiga siirada guud ahaan maadooyinka cilmiga ahba marka hambali aan leenahay degmooyinka ku guuleystay ay ugu horeyso degmada Baraabe iyo degmada Teeglow hambalyo insha Allah maktabada gudoomiyaha halkan uu ka sheegay mid ka mid ah dadka halkaas soo xaadiray halkaa ka hadlay aad uu mahadsan yahay maktabad weyn madaxweynaha dhagax dhigay yeeshee insha Allah hawsheedana waa lagu jiraa taasoo ay u suurtagelin doonto insha Allah fi mustaqbal in aqoontii kala dugneed halkaas ardada ay ka helaan cilmi baarista haddii aan lahayd dhinaca walba mataqaana markaas ay fududeen doonto in tartankaas oo halkaas kusii socdo insha Allah billahi kariim wasaaraddan way dabagala doontaa insha Allah dhamaystirka barnaamijka dhisida maktabada weyn ee dowladda koonfur galbeed ay ku yeelan doonto magaalada Baydhabo insha Allah ilaahay idinkiisa sidoo kale degmooyinka iyo goboladana waa laga taabigin doonaa insha Allah maktabadahaas waa qorshaha wasaaraddan way ku jirtaa in la helo maktabad dhameystiran oo ardayga uu kaga faa'iideysto aqoontiisa halka uu cilmiga uu ku baaran lahaa insha Allah ilaahay idinkiisa manhajkan saas oo kale insha Allah waa xoog saareynaa hadda manaahijtii dugsiyada waa la qeybiyaa oo ardada waa la siyaasi qana lacag laan ah waxana waa lagu baraa ayagana waa la horumarin doonaa insha Allah wasaaraddan way ka shaqeyn doontaa billahi kariim ugu dambeyn waxaa mahad ballaaran u jeedinayaa in ciddii taabagelisay barnaamijkan ay ugu horeyso wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadkana mahad gaar aan u jeedinayaa maadaama dhiirigelin mug leh ay ka geysatay sidii halkan ay noogu caddeeyeen barnaamijka ay ka qayb qaateen taabagelintiisa marka aad u mahadsantihiin dhammaantiinba khaasatan waxaa si goonaa u salaamayaa tiimka ka soo shaqeeyay oo agaasimaha wasaaradda TV-ga koonfur galbeed ugu horeeyay Umar Mustafa waxaa rabaa marka ugu horeysa inaan u jeediyo bogaadin wasaaradda warfaafinta oo wasiir Abdulfataax uu joogo waa markii ugu horeysa dhiirigelinaya degmooyinka ku guuleystay tartan aqooneedka akhlaaq bishii barakeysanad ee Ramadaan wasaaradda warfaafinta aad ay u mahadsan yihiin special wasiirka warfaafinta waa markii ugu horeysa sidoo kale waxaa rabaa inaan hambalyo goonaha u diro ama hambalyo gaar ah u diro degmada Baraawo iyo degmada Teeglow oo Baraawo oo gashay kaalinta koowaad Teeglow ay gashay kaalinta labaad ayadana waxaa leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan si gaar ah ayadana ugu hambaliyeeyo ama bogaadin u muujiyo wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed oo ugu horeey wasiirkeeda Maxamed Usmaan Jiidow iyo bahda caafimaadka wasaaradda dowladda koonfur galbeed waxaa farxad ah maanta inaan halkan joogo oo xalfadan qiimaha iyo qaayah leh qayb aan ka ahaano waxay ahayd xalfad mudan in la dhiirigeliyo dhalinyarta koonfur galbeed waa ogtihiin tartanka akhlaaq iyo aqoon sanad walba bisha Ramadaan la qabto muhiimad gooni ay noo leedahay haddana ay dowladda koonfur galbeed waayo waxa isku bartaan degmooyinka koonfur galbeed dhamaantood waa ogtihiin hadda degmada Teeglow oo ah gobolka Boqol laba shabeelo oo ah degmada Baraawo ayadana ah oo aad u kala fog inay maanta kaalin koowaad kaalin labaad galaan waxay noo ahayd farxad gooni ah ayagana waxaa leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo waxaa rabaa inaan xuso oo maanta marna aanu xusin sanadkii ka horeeyay waxaa kaalinta koowaad galay degmada Diinsoor ee gobolka Baay oo la raway in la amaano la dhiirigeliyo nasiib uma noqonin waxaa nasiib heshay degmada Baraawo iyo Teeglow oo heleen
wasiirkii ugu habboonaa wasaaradda warfaafinta oo gartay in dhiirigeliyo degmooyin koonfur galbeed runtii wasiir abdulfataax waxaa rabaa inaan si gaar ah u ammaano juhdiga uu geliyey in xalfad noocan la isku imaado maanta magaalada baydhabo wasiir aad u ammaanan tahay waana mahadsan tahay degmooyinka kale oo hore usoo guulaystayna nasiib uma yeelnin in xalfad noocan loo qabto kolley nasiib wanaag maanta degmada baraawe ay noqotay in xalfad ugu horeysa loo qabto wasiir waxaan rajaynaynaa kolley insha allah aan codsanaynaa inay dhiirigelinta sii socoto oo degmooyinka markay guulaystaan mar walba dhiirigelisid waxaa kaloo jira wasaaradda caafimaadka ugu horeysa ayadana inay taabageliso wasaaradaha dowladda koonfur galbeed ayadana waxaan ka rajaynayaa kolley wasiir juuda uu mahadsan yahay tiimkiisa wasaaradaha kale oo hadda bulfurxayow sheegayna waa rajaynaynaa insha allah ayagana qayb inay qaataan oo wasaaradda qorsheynta ugu horeysa insha allah ay hob sanadkan soo socda waa rajaynaa inaan qayb aan qaato insha allah dhiirigelintaas aan u sameyno degmooyinka koonfur galbeed anaga waan jecelnahay in bahda waxbarashada in la dhiirigeliyo in la horumariyo waayo halkan waxaan kusoo gaarnay aqoon iyo cilmi qof walba qofkii aqoon iyo cilmi aan lahayn ma usan imaan lahayn masabka maanta uu joogo dhammaanteena waa rajaynaynaa kulley insha allah dhammaanteena inaan qayb aan qaadno waayo dhammaanteena waxaan nahay bax waxbarasho ayaan nahay waxaan ka tirsannahay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ayaan ka tirsannahay dhammaanteena hadda ayaa waxbarasho wadnaa qaar hadday dhammaynayaan qaar waxay diyaarinayaan master qaar PhD diyaarinayaan aad ugu faraxsanahay marka inaan qayb aan ka ahaano mar walba baxda waxbarashada Soomaaliya special baxda waxbarashada koonfur galbeed waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo khudbadayda oo maanta halkan u joogo mahad celintaas ka sokow waxaan rabaa inaan hadal yar aan u jeediyo baxda waxbarashada koonfur galbeed tartamada noocan ah ay badiyaan oo qayb ay ka qaataan tartamada inay gaarsiiyaan dhammaan Soomaaliya mar walba waan ku faraxsanahay inaan kaalin ka galno tartan walba la qabto inaan kaalintaas galno aad ugu faraxsanahay daraad ugu dambeysay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta tartanka ay qabatay dowlad goboleedka koonfur galbeed kaalin koowaad kaalin labaad ay gashay waxaan rajaynaynaa waxbarashada kale maadiga ah iyo waxbarashada kale oo tiknoolajiyada cusub aan rajaynaynaa insha allah ayagana inaan kaalimaha hore aan gali doono insha allah waan rajaynaynaa salaan kadib farxad weyn ayay ii tahay inaan kasoo qayb galo xafladan oo soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta tartanka aqoon iyo akhlaaq ay ku tartameen degmooyinka koonfur galbeed iyo degmada baydhabo xaafadaheeda tartankan markii ugu horreysay la qabtay maahan intay dowladda jirtay iyo TV koonfur galbeed shaqeynaya tartanka waa la qaban jiray inkastoo marxalado badan oo soo maray tartanka waxaan rabaa inta madaxweyne cabdicasiis ee joogo markii ugu horreysay oo degmo la abaalmaray ma ahan dadku waxaa arka hadlaya dhahay markii ugu horreysay waay ma ahan markii ugu horreysay waxaan xasuustaa tartanka ugu horreeyay madaxweyne cabdicasiis markii la doortay waxaa ku guuleysatay degmada Walaweyn aan xasuustaa tartankii labaad la qabteen waxaa lagu qabtay isla hoolkan waxaan ka mid ahaa dadka kasoo qayb galay joogay waxaa wasiirka ah wasiir Ilyas Qalinle tartankii saddexaad marka aniga safaradii iska badnaa markiina la qabteen kale mana ogi tartankii afraad waa maanta nasiib u yeeshtay wasiir Cabdifataax marka waxaan rabnaa haddii la dhaho tartankii markii ugu horreysay waa dowladda markii ugu horreysay tartanka aqoon iyo akhlaaq ay qabatay naqane dowladda intay jirtay tartankan waa la qabanaa waxaan taabgelinahay maamulka degmada baydhabo markii ugu horreysay wasaaradda caafimaadka ay taabgelisay waa intii ka horreysay maamulka taabgelinaa marka waxaan rabaa dad badan hadlayay ayaa maanta si fiican ii ammaaneen ammaanta waxaa leh horta madaxweyne cabdicasiis madaxweynihii koonfur galbeed noo gartay inaan u shaqeyno koonfur galbeed asaa ammaanta leh wasiir maanta shaqeynina ma jirto wasiir kasta shaqo gooni oo leeyahay shaqo qabtaa wasiirka waxbarashada deegaanada koonfur galbeed iskuulo badan oo ka dhisay
qaarkood xarag laga jaray degmada ku guuleystay Baraaw 10 iskuul oo xarag laga jaray wasaaradda waxbarashada dhistaa jirto wasiirka haweenka haweeney maalin shaqeysaa iyadoo gabar ah marxaladda dalka lagu shaqeynayo waa ka wareysiin wasiirka cadaaladda oo maanta noo joogo waa ogtihiin wuxuu ka shaqeeyay oo ku maasan yahay oo abaal weyn ugu hayno in dadka cadaaladda ka raadi jiray meelaha buulufulaa iyo meelaha kale oo nabadiidka joogo in maanta Baydhabo qof cadaalad meel kale ka raadi karin oo cadaalad ku helayo magaaladan Baydhabo oo madaxweynahan qayb weyn ka qaatay wasiirka warfaafintan waa u jeedin wacyigelinta iyo heerka TV-ga maanta joogo oo shaqada maanta oo hay TV-ga iyo shaqooyinkii hore loo hay iyo maanta la hay waa u jeedin in wasiirka dadaal badan oo sameeyay dadaaladaas oo maanta ina meesha isku imaan maxaa yeelay nin kasta oo ogyahay xaafadeen waxaa ku jirta korontada marar qaar 6 saac iska bixaysaa 5 saac iska bixi 4 saac iska bixi ma kula tashanayso wasiirku wuxuu qayb ka qaatay haween kasta oo la tartamayo in fuusti shidaal meesha soo dhigo say koronta u baxday loo dhim oo TV-gan u damin tartankan oo socdo marka wasiirkan asan waxaan leenahay aad u maasan tahay wasiirka qorsheynta ninkii hay'adaha noo qaabilsanaa waaye oo hay'adaha wasaaradaha la shaqeynaya marka asigana aad iyo aad u maasiyaan shaqo fiican qabtay marka waxaan rabaa in dhalinyaradeen iyo bulshadeen ay ogaato koonfur galbeed noogu sareeyo madaxweynaheena iyo anagoo wasiiradii aan nahay dalkaana la xijceli naga hayso anaga dalkan uma imaanin inaan ka shaqeysan kaliya waxaan rabnaa dalkaana u dhalanay haddii beri aan ka tagno in la soo xasuusto oo magac fiican aan ku yeelano magaceen inoo halaaban madaxweynaha saacad kasta waxaan u dhiirgeliyaa su'aalaha badan oo nu weydiinaa waxaa waaye maxaa la qabtay maxaa qabatay haddii maxaa qabatay isdhihi laheen maanta horumarka koonfur galbeed ay gaartay ma gaari laheen isla xisaabta hadduu jirin dowladda koonfur galbeed iyo dowladaha kale waa fiiri kartiine dowladda isla xisaabtan samaysay oo wasiirkeed iyo madaxweynihii ishor fadhiisteen oo la dhahay waxay wasaaraddaas soo qabatay la imaaw waxay qabaneen sababta ugu weysan sheeg la dhahay koonfur galbeed ugu horeyso marka waxaan rabaa wasiirka hadduu saaxiibkaa yahay haddaa jeceshahay haddaa shaqaalihiisaa tahay waxaa la rabaa madaxda markii la ammaanayo kow madaxweynihiisa la ammaano kadib asaga la ammaano marka taas aa dhalinyarada ku dhiirigelinaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimka ka shaqeynaya tartanka aqoon iyo akhlaaq oo wariyaasha macallimiinta haweeney maalin soo taagnaa iyagan shaqeynayay su-aalihii markii la isqabsado jawaabtood si loo helo oo habeenkii fadhiyey oo magaaladan ogeyd ramadaan barwaaqo ahaa habeen iyo maalin roobaa da-ayay qof 6 saac 7 saac TV-gan oo ka baxo gurigiisa uu hooyanayay dhibaatadu maray waa dareemi kartiin dhiiqdaas waxaa laga yaabaa qof qaar dharkooda ka halaabay ee ku kufeen marka waxaan leeyahay aada u mahadsan tihiin waa idin ognahay dhibaatada ku shaqeynaysaan iyo juhdiga ku shaqeynaysaan waa ognahay insha Allah sabarkan badiya dadaalkan wada dawladdu waa idinka warhaysaa mayba kale inta ka mahadnaqaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo markasta surun inuusa dhalinyarada iyo deegaankan koonfur galbeed wal kasto oo iyo lagu hormariyo in la suubiye taas oo waxyaabaha uu suubiyahayna oo uu qobadahayna mayba kaalinta koowaad iska leh madaxweynahan ka mahadnaqaana tan kale tartankan wiji badan ah weeldadii siisin ogtiin waxyaabo badan markii hamiinkii la tartamaayay wasiir ahaan mayba ka jareen gudiga group oo ay jaray oo dadka tartamayaasha kulli ku wada jareen lan kasto markii la isku qabsado su'aalaha oo yaani lis maro waaye
guddiga oo markaasan xil saaranayo wasaaradda uleese ka badan may xasuusadee in oo mar gruubkuunu dhonka jarna guddiga si wicitaan lahan kuwadii gruubkii dhon hiran ana lahay weeri wasiir sana anfacaase leere markaas ka bacdi markii ana fiiri aan naftayda kilkiiriya ka jaray gruubka oo wal qoraal yani oo lis dhaafsado u dhahma jar guddiga la hadali weeray gruubka dib ay furay qof kasto oo yani abasho qobona meelaan ka jawaabay wali hiri koro ma jara caqabadaha kuwiin unu la kulannay ya ka mid haayeen wasaaradda mayba suubiday markuu ka horeyta cadaalad daro lan tirsana 3 qof oo ka madax banaan guddiga ya magacawtay oo dikreetaha ka saaray wasiirka si iyo mayleeray markii lis qobsada oo indhaxaadiyan oo waxyaabihii su'aalaha jaamacadda hadiyaaradii hadii oo yani liska maro waaye si iyo inka fadheedan taas madheena jaamacadda bay ciidanka mahadnagaana iyo biayu mayba eed iyo unsuubidayha soo jeed badan iyo isxilqaan badan markii lis qobsada ka bacda iyo diblanka nagadaay waana hasahaasi marka mayba lahaa degmada Baraawo hambaliyo marlamaad iyo xaafadda Daarusalaam iyo kihigeen xaafadaha kale oo isla xaafadda Daarusalaam mayba nasiiban weelatayha ini lama xaafadood kaalan koowna ka gala kaalan lamaadna ka galan taas oo tusaasa dadaalkiyo muujiyeen oo yani iyo sidiion iska taladeen aqoontiyo lahaayeen tartanka markaa socday marka mayba siin ka hambaliyo unuuna may ballan qaadane haddii ilaahay era mayba ku kordhiyaan tartanka kale haddii oon ilaahay ninsima nafta unu qobno inni 30 juz quraanka la ka tartama sanadka socda haddii ilaahay era waxyaabaha oo nin koreeyay oo kordhiyaan oo nagadaayaan hambaliyo dhammaan fanaaniinta iyo intaa ka qayb galay eediyada mahadsantiin kolley farxadda unu dhan iskala qayb qaadanen mayba haddanta ka biyaanana waxyaabihii oo mutaysadeen tartamayaashii shahaadooyinkii lamada degmo oo diinsoor iyo waajid iyo namaysiyaane iyo shahaadi siyaane iyo yankasti wasaaradda warfaafinta haddii ilaahay era asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu